golaha shacabka oo indhaha dadka Soomaaliyeed ay fiirinayaan oo ehelkii Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax ay fiirinayaan oo ay fiirinayso caalamka dhammaan ay fiirinayaan maanta si fiican ceeb asturay oo naga ceeb asturay inaysan noo xalaaleyn baqtiga aad bay u mahadsan yihiin mudane gudoomiye warbixintan waa fiican tahay laakiin waxaan isleeyahay iyadoon wax weyn loogu noqonayn qodob ayaa dhiman mar haddii lagu tilmaamay sharci darro in nin Soomaaliya loo dhiibo dawlad kale haddana wax loo cuskaday oo sharci aysan jirin ma wuxuu noqonayaa boorso diyaarad inta la raacay waan naqaanaa marka diyaaradaha la raaco boorso markay ka lunto qaab loo cabtaa jira marka xawaalad lacag aad ku dirsatid haday ka qaldanto magac kale u qaato waa la yaqaan qaabka loo soo cesho guddigan sharafta leh qof Soomaali ah oo la dhiibay oo sharci darro lagu tilmaamay waxba laga ma soo qaadin cidii dhiibtay iyo asagii naftirkiisii oo xuquuq u leh inta xaq darradii lagu la kacay dib looga noqdo anigu waxaan leeyahay ha lagu daro warbixinta ha lagu daro in qalbi dhagax dawladda Soomaaliya codsi official ah muddo isbuuca 23 waa la qabtay 28 waa la dhiibay isbuuc waa ka yartaa xitaa muddo 7 lagu dhiibay muddo 7 ah intii lagu dhiibay in la mid ah in Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax dalkiisii iyo ehelkiisii iyo dadkiisii xaq darrada looga waday in lagu soo celiyo lagu qoro labo marka arintaasi ay dhacdo oo sharci darro la yiri qofkii sharci darro sameeya muxuu yahay abaalkiisu muxuu yahay abaalmarintiisu cidii ka dambeysay hadda nabasugidda baawar 5 qofood oo la wareystay oo mas'uuliyiinta kuma jiraan dadkii dalkan mas'uuliyadiisa lagu aaminay kuma jiraan guddigu ma gaari waayeen madaxda sare ma gaari waayeen oo duruufta ayaa u diiday ma ayaga diiday meel dhaxay ka soo laabteen haddana hay'adda nabasugidda ayay waxay yiraahdeen waxay qaadatay misleading bay samaysay marin habaabin warbixin marin habaabin ay gudbisay madaxdii go'aanka qaadatay ee dalkan amniga dalkan mas'uuliyadiisa lagu wareejiyay sidee marin habaabin ma sidaas fudud baa loo marin habaabin karaa waxaan qabaa cidii ka dambeysay oo wada lahayd mas'uuliyadana inay nabasugiddu waa hay'ad ballaaran in 1 iyo 2 iyo 3 la yiraahdo si maxkamad loo soo taago waa qasab waayo wax sharci darro ay ku kaceen la iskama cafin karo recommendation koodu sidii odaytinimo ay u hadleen kala aragti duwanaanshaha guddiga laga yaabaa inay saas samaysay laakiin mar haddii baarlamaanka lagu soo ceshay in labadaas qodob lagu xuso waana qabaa waana soo jeedinayaa ilaa asixiyo warbixintan waa maasantiin